madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydidi Solteerko iyo maayar ku-xigeenka magaalada Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne iyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinde Gande ayaa waxay soo kormeereen sariimad weyn oo dawladda hoose dhawaan ka hirgelisay suuqa weyn oo Gobonimo ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay hooyooyinka loo dhisay sariimadani ayagoo ka dareen farxadooda waxaana hadaladoodii kamid ahaa kan idinka sheegaya madax iyo mitaba Cabdiraxmaan Solteerko uu noo hiiliyay cadceedii buu naga kiciyay dhooqadii buu naga kiciyay uskagii buu naga kiciyay bilicdii magaaladu hagaajiyay hooyooyinkii buu xareeyay qudradii dalku hagaajiyay waxaan ku uri waa Soomaaliland dhaxdeedii qudradda dalku halka waxa iskugu yimaada 4 doox oo dalku leeyahay suuqani waa suuqa ugu weyn wixii la cunayay iyo calafkii bay horiyaan cambiya liin macaan tan iyo baleeg saytuunkan culus baleeg caynkii tufaax ama ubaxa cudoon Allah noo calaf nimcadaada caadi oo kare dhanka kale iyaguna waxa hadalka iska daba maray maayar ku-xigeenka magaalada Hargeysa iyo maayarka magaalada Hargeysa waxaana hadaladoodu u dhignaayeen sida tan haddaanu nagoli deegaanka waxaan idin diidnay iyo xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil inaad cadceedda wax ku hoos iibisaan soo maaha cadceeddaanu idin diidnay soo maaha wixii la idin dhisayay buu maanta soo jeegaraynaya madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisu qaybta caanaha ee Gobonimo waxaan u sameynay maamul dad oo intoodii joogtay guddiinta loo sameeyay maamulayo suuqa waahayna hilibkana sidaas leeg kana waa kii saddexaad ee markii aanu dhisnay halka maalintii waxa la lahaa way iibinayaan soo maaha aad baa u mahadsantihiin halkana guddigii baan u sameynay waa khudradda meel walba isaga timaada waan halka ugu weyn ee khudradda lagu soo dejiyo sidaas aan guddi ugu sameynay guddigaas aan maamul doontaa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isagoo u hambeliyay hooyooyinka sariimadani loo dhisay waxaana hadaladiisii kamid ahaa salaan kadib haweenweynaha halkani loo sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida fiican noo soo dhaweyseen waxa kale oo mahadnaqaynaa maayarka iyo golihiisa deegaanka iyo shaqaalihiisa dawladda hoose ee hawsha ku guuleystay kol hadday xilkiina saareen oo idin dhiibeen idinkana saa sheegtay waxaa laga rabaa inaad cadaalad ku qaybisaan oo intii awalba shaqaynaysay ee bannaanka fadhiday inay maantana harka helaan intaa baa la idinka baahan yahay aad iyo aad baad mahadsantahay waan idin hambaleynaynaa dhanka kale markii ay soo gabagabeeyeen kormeerkii ay ku marayeen sariimada ay dawladda hoose ka hirgelisay suuqa weyn ee Gobonimo waxaa telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV la hadlay hooyooyinka loo hirgeliyay sariimadani ayagoo ka dareen celiyay farxadda ay maanta dareensan yihiin amaana kula dul dhacay dawladda hoose waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sida tan maanta shucuurtayda iyo farxadayda iyo qalbigaygu waxa soo koobi karaya ma aha halkan in ilaahay oga anigu aynigaas waan ku dhashay suuqa 16 carruurna waan ku dhalay taac badan oo ku qiimeyn kareen baan naga soo qabsaday cadceed baan na dishay roob baan na dilay uskag baan na dilay khudradana markay meel xun taalo hoosteedana biyo dhooqay taalo waxa masleeyahay dadka indhaha ka gashaa ku dhalataa ilaahay baa mahad ha u sugnaatay dawladdeedu way naga dul qaaday sharafteeda iyo amaanteedii awoodayna saartay maanta waxaanu qiimeyn karayna maaha ma sha Allah ma koobi karo shucuurtayda iyo maxay ahayd maanta ahmiyada ay leedahay ma koobi karaba waayo waxa weeyaan waxaanu haysanay cadceed baan haysatay roob baan hayay maxay ahayd waxaan nadaafada ku daryeelo maanaan haynin dad masaakiin baanu ahayn maayarka dawladda madaxweynaha iyagii hore kan imika jooga intaba waxaan leenahay hambalya Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab iyo Axmed Jiiti telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.